kulanti wacan u wanaagsan khiyaarta hawada naga daawanaysa meel kasta daafaha dunida ka joogtaan. halkani waa aragti media oo uga barateen inaan idiin soo tubino dhacdooyinka ugu dambeeyay iyo wararka ugu xiisaha badan. haddaba maanta warbixinteenan ama caawa waxaynu ku eegi doonaa warbixinteenan dhacdo dad badan oo soomaaliyeed ka yaabisay, islamarkaana ilmo yar oo soomaaliyeed oo 6 jir ah laguna sheegay inay tahay gabadh yar ayaa lagaga dhex tegay suuq weyn oo ku dhex yaala magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka. suuqaasi oo lagu magacaabo moolka Carmel. haddaba ilmaha yar ee Soomaaliyeed sababta kaliftay in lagaga dhex tago suuqaasi ayaanu warbixinta ku eegi doonaa, iyo weliba cidda dhashay ilmahan iyo halka uu kasoo jeedo. haatana kusoo dhawaada warbixinteena oo faahfaahsan. sida hordhaca warbixinteenaba ku maqlayseen, dhacdo yaab leh oo naadir ku ah bulshada dhexdeeda Soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, kadib markii gabadh yar oo Soomaali ah oo 6 jir ah waalidkeed kaga dhex tageen mool lagu magacaabo Carmel oo magaalada Minneapolis ku yaala. ilmahan yar ayaa sida la sheegay la garanayn sababta keentay in suuqa dhexdiisa lagaga dhex tago. wararkan ka helana gabadhan yar ayaa da'deeda lagu sheegay 6 jir, waxaana halkaasi ka helay dad Soomaali ah oo ka dhex heleen moolkaasi kadib markay arkeen ilmaha yar ee Soomaaliga ah ee muddada saacadaha badan moolka dhex marayay oo aan wax cidi la socon. ilmahan yar ayaa waxa helay dad Soomaali ah maadaama moolka Carmel ay Soomaali badan ka dhex ganacsadaan. ilmahan yar ayaa dadkii helay ayaa wareystay, waxayna magacyada waalidiinta sheegtay. waxayna ku sheegtay hooyadeed in la dhaho Ayaan, aabaheedna waxayna ku sheegtay in la dhaho Yaxya. haddaba waxaa dadka Soomaaliyeed ka yaabisay sababta ilmahan Soomaaliga ah loogaga dhex tegay suuqa dhexdiisa oo malaayiin qof saacadiiba ay dhex marayso. cabdixakiin cismaan nuur oo inta badan ka faalooda arrimaha Soomaalida ee dalkaasi Mareykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ayaa boggiisa Facebook ku faafiyay ilmaha yar, sidoo kalena sheegay in wax aad looga xumaado ay tahay in ilmo yar oo Soomaaliyeed lagu dhex arko in lagaga dhex tago mool dhexdiisa, islamarkaana saacadiiba ay marayaan in ka badan 100 qof. cabdixakiin xerta ayaa sheegay in sababta aan la garanayn in ilmahani loogaga dhex tago suuqaasi. sidoo kale waxa uu aad uga hadlay sababtani inay tahay sabab argagax leh, waxaana wareysi ka qaaday dadkii Soomaaliyeed ee ilmahaasi gacanta ku dhigay ee sidoo kalena helay, waxaana uu faahfaahin dheeraad ah naga siin doonaa cabdixakiin xerta. haddaba waa kan cabdixakiin xerta oo ka hadlaya arrimaha ilmahaasi yar iyo sababta kaliftay in lagaga dhex tago suuqaasi. waxaa haddeer soo gaaray qayladhaan ka timi moolka Carmel. waxaa ila soo xidhiiray yarka sukuuradka ah moolka jooga iyo dhammaan gabdho ganacsataa oo moolka businessya ku leh. ilmo yar oo Soomaaliyeed oo gabadha da'deedana lagu qiyaasay 6 sano jir ayaa waalidkii dhalay maanta meesha kaga tageen. ilmihii yaraa ilaa maanta wuxuu wareegayay oo mehanaabayay moolka dhexdiisa. waa la qabtay. ilmaha yar waa gabadh. waxay tiri hooyaday Ayaan baa la yiraahdaa, aabahayna waxaa la yiraahdaa bay tiri Yaxya. sidaa darteed sharciyan ma ogolaan u malaynayaa miidiyaha ama sharciga waddanka in ilmaha sawirkiisa la soo geliyo ilaa iyo laamaha amnigu ay gacanta ku qabtaan. ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan haddeer warka ay soo gaaray kale waxa weeyaan in ilmihii yaraa adareyskiisii la helay lana wacay Soomaali booliis ah. marka bal isagoo wixii ka soo kordhay ayaan rabaa inaan ogaado. السلام عليكم. لايفكii baan ku jiraaye adareyskii la helay. adareyska cunugta adareyska hadda gabdha aadeen, laakiin video-ga waa kuu soo diray cunugta magaceeda iyo iskuulka ay aadi jirtay oo isnoo sheegtay aabaheed iyo ayada magaceeda. cunugtu waa 6 ilaa 7. okay. ayaana la yiraahdaa hooyadeed, aabaheedna Yaxya la dhahaa. okay, ii soo dir hadda ii soo dir. okay. saa u jeedaan gabadha yar baa maqlasaan. waxbaa qoftaan raba inaan weydiin aan soo gelin kara videoga.
أفصل مختار يوه ولا لو المية الصوماليات بحالة هاي أو جبارة أي مالك لجه هاي مركا والإصابة أيها حلقي ميدي هي وحاسكري مركا المهرة هدي ويعني اللونسية هو كلا شرعيا سكورة كده بافي وبافي كلا سمع هاو اللي نيشك أوكي بس أصدق إني أوكي thank you سوقنا إن شاء الله الله هذا الصومالي وفسر الصومالي الله هذا لي مركا عادي من سوق الإنكرا والله هو أيام ضر ما أنت لا ماشي لقى دقائق وحالة آدي أذحن وحفي عن معها إلهي سبحانه وتعالى وحنا غبر ينا المهاس من والد كيس الله هلا wixii ka soo kordhan waa idinla wadaagayaa ku jira bartii naas waxaa la yidhi gabdha ayaa baxay adareyskii gabadha ayay aadeen meel lagu lumi kara maa cabdiqaadir كراميل مال لو دخلومي كرما كلي waa waalid wax ka khaldan yihiin waxba kulay khaldan marka baynu eegana insha Allah isaga wax yar meel كراميل meel lagu lumi kara ma aha kulay ilmaha yar reason baa jira ay uga tagtay waalidku waxaa laga yaabaa in ilmo waalidkii uu xanuunsan yahay oo hooyadii xanuunsan ay haysay aabaheena uu dayacay ayaa dhici karta marka bunan laki waxay dhahdeen lix jir adreys taqaana waa yaab waxa loola yaabo runta waxa loola yaabo كل دبعته شعب الصومالية قبل كمنسوطة دبعتين بدن أو حق عافمات كأه أو قريها واجران أو والدين تهيسته وجيران أو يعني الو نعم إلا يوح الله بيه وواليه هنا محي أدريسك اللي هلا waa maxay يا هاي علماء مساجد سوما فرنا يا مساجد سوما فرنا وحافي عن dadka isnaabjaadyada in loo geliyo loo baahiyo اوكي مساجد علماء سوما فرنا هذا ما لقني مليون هذا ولا naadinaya hadana wala naadinaya marka ilmuhu ma hadlayo meeqa ilaa meeqa saac meesha joogay gabadha ilaa iyo maanta duurkii wana kala meemsato alfaa adxkiin okay waa kugu soo celina adxkiin okay ilmaha yar saaka wan oo kale ayaa meesha lagaga tagay sida aad maqlaysaan ha badre isnaabta jigare waa lagu soo tuuray okay saadiyo gabadhan dhahay no whatsapp igu soo dir whatsapp igu soo dir okay السلام عليكم دمان dadka snack kan fiirsanayo waa kana gabar yar baa laga wajiga ilmaha waa qarsoon yahay okay mid kale ka fiican ku duubena ku whatsapp igu soo dir okay haye okay
السلام عليكم دمان دتك سناب كان في سنايو gabar yar baa laga hela Karmel Mall 3 saacadood bay hadda dhunsan tahay masaajidka baa la geeyay waxay dhada hooyadeed waxa la dhahaa ayaan aabaheedna waxa la dhahaa habro yaxye ayadana waxa la dhahaa salmo ayadana salma la dhahaa waa 7 jir ilaa 6 jir waa gabar aad u yar dharkaanay wadataa please fadlan la soo xiriir sida ugu dhaqso badan siraad soo numberkana halkaana ku soo qoraya waa second floor waa 218 numberka siraadna halkaana ku soo qoraya walaalayaal fadlan gabadhaan alooga gaaro haddaa garanaysiin salmo hooyadeedna ayaan aabaheedna yaxye 3 hours 3 saacad okay suga السلام عليكم دمان دتك سناب كان السلام عليكم دمان دتك سناب كان في سنايو gabar yar baa laga hela Karmel Mall 3 saacadood bay hadda dhunsan tahay masaajidka baa la geeyay waxay dhada hooyadeed waxa la dhahaa ayaan aabaheedna waxa la dhahaa habro yaxye ayadana waxa la dhahaa salmo ayadana salma la dhahaa waa 7 jir ilaa 6 jir waa gabar aad u yar dharkaanay wadataa please fadlan la soo xiriir sida ugu dhaqso badan siraad soo numberkana halkaan suga الله ياب واي Soomaali halkaas marayaan Soomaali halkaas marayaan ilmaha yar oo kowdii lagaga tagay meesha kale xaalado unba xaalada jira iska dhibaato family ah jirta amen suga Hello? Yeah. Why? Yes. لمبر خلدنا معي. إن شاء الله بعد كسر علينا يا أصحابي والله من ما هيروا عركتين. أبغى قالوا تيجي. السلام عليكم دمان دتك سناب كان في سنايو gabar yar baa laga hela Karmel Mall 3 saacadood bay hadda dhunsan tahay masaajidka baa la geeyay waxay dhada hooyadeed waxa la dhahaa ayaan aabaheedna waxa la dhahaa habro yaxye ayadana waxa la dhahaa salmo ayadana salma la dhahaa waa 7 jir ilaa 6 jir waa gabar aad u yar dharkaanay wadataa please fadlan la soo xiriir sida ugu dhaqso badan siraad soo numberkana halkaana ku soo qoraya waa second floor waa 218 numberka siraadna halkaana ku soo qoraya walaalayaal fadlan gabadhaan alooga gaaro haddaa garanaysiin salmo hooyadeedna ayaan aabaheedna yaxye 3 hours 3 saacadood bay gabadhaan noosan tahay Okay, bal waa idinku soo noqonaya Soomaaliya insha Allah.